kulankan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda Denmark Jeba Sebastiano Kofod ayaa looga hadlay iskaashiga iyo xoojinta xiriirka soo jireenka ee labada dawladood iyo joogteynta taageerada Denmark ee ku aadan dib u kabashada Soomaaliya taasi oo muhiim u ah wiiqida xagjirnimada argagixisada adkeynta amniga guud ee dalka dhisida mustaqbal u suurtagelinaya dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan shaqooyin fursado dhaqaale iyo carruurta Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho tayo leh ra'iisul wasaare Khayre oo dawladda Denmark uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ee dib u dhiska kobaca dawladnimada Soomaaliya ayaa dhinaciisa cadeeyay in Soomaaliya ka go'an tahay xoojinta iskaashi iyo xiriirka qotada dheer ee labada dawladood isla markaana Soomaaliya higsanayso horumar ku saleysan isla xisaabtan iyo daafurnaan wasiirka arrimaha dibadda Denmark Jeba Sebastiano Kofod ayaa bogaadiyay horumarka dawladdu ay ka gaartay dhismaha hay'adaha dawladeed qorshaha dib u qaabaynta idaalkeeda la dagaalanka argagixisada waxa uu cadeeyay in dawladda Denmark ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay si garab taagnaato taageerada dhinaca xasilinta soo celinta amniga ganacsiga dhisida mustaqbalka dhaqaale want to say that the partnership between Somalia and Denmark is very important. waxaan rabaa inaan xuso in iskaashiga u dhaxeeya Denmark iyo Soomaaliya uu yahay mid aad muhiim u ah waa inaan u midownaa sidii uu dalkan mar kale u yeelan lahaa mustaqbal wanaagsan sidii aan uga guuleysan lahayn xagjirnimada argagixisada sidii aan u dhisi lahayn mustaqbal u suurtageliya dhalinyaradu inay heli karaan shaqooyin sidii fursado dhaqaale u abuuri lahaayeen carruurtu u heli lahayd waxbarasho iyo sidii loola tacaali lahaa amniga guud ee dalka dawladda cusub ee Denmark waxay ku faraxsan tahay inay iskaashi la samaysato dawladaha Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan bariga Afrika iyo geeska Afrika ka aragnaa mustaqbal wanaagsan oo ku saabsan horumarinta iskaashiga dhaqaalaha ganacsiga iyo maalgashiga maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in dadka oo idil ay u qalmaan mustaqbal wanaagsan marka aad eegto caqabadaha ka jira Soomaaliya waxaan ogsoonahay sida ay u adag yihiin waxaad ahaydeen dal uu dagaal soo ragaadiyay oo hadda uu dadaal ugu jiro sidii uu dhibkaas uga bixi lahaa si dadka Soomaaliyeed ay ugu soo noqon lahaayeen dalkooda una arki lahaayeen isbedelada uu sameynayo waxaan idin rajeynayaa guul waan iskaashanaynaa waxaan idinka taageeri doonaa dhinacyada xasilinta soo celinta amniga ganacsiga dhisida mustaqbalka dhaqaalaha Danjire Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Soomaaliya ayaa xusay in booqashada wasiirka arrimaha dibadda Denmark ay muujinayso horumarka Soomaaliya sameysay oo caalamka ku dhiirigelinaysa inay yimaadaan isla markaana indhahooda ku arkaan horumarkaasi wasiirka Denmark wuxuu maanta u yimid xiriirka Soomaaliya iyo Denmark si xoojintiisa si Soomaaliya ay mustaqbal fiican dhalinyarada iyo dadka Soomaaliya mustaqbal fiican u yeelan lahaayeen iyo inuu muujiyo sida ay Denmark uga go'an tahay inay Soomaaliya taageerto deganaanshadeeda siyaasadeed la dagaalanka argagixisada horumarka dhaqaale iyo dhaqan iyo waxbarasho intaba wasiirku wuxuu kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha wuxuu ra'iisul wasaaruhu uga warbixiyay horumarka Soomaaliya ka jira iyo xiriirka Denmark iyo Soomaaliya ee xoogan iyo sida ay Soomaaliya ay u daneynayso inay xiriirkaasi xoojiso hadalkaas oo aniguna aan si adkeeyay kulankii aan la yeeshay wasiirka dawladda Denmark ayaa dawladda Soomaaliya ka taageerta barnaamijyo lagu horumarinayo xasilinta nabadeynta iyo dhismaha hay'adaha dawladeed Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho